taliye waa mahadsan tahay sida wanaagsan adiga iyo saraakiishaada igu soo dhaweyseen halkan oo hadee si joogto ah ama si marmarka qaarkood aan kugu imaado inaan soo booqdo oo aan xog wareysano oo aan xisaabtano maalintii halkan aan ku soo booqday April 12keedii sida xasuustaan si fiican baan wada hadalnay waa xog wareysanay xog wareysiga waxa ka dhashay in ay sheegteen dhaliilaha jira iyo sida la rabo dhaliilahaas in loo saxo hawlaan kala qaadanay hawlihii aan kala qaadanay hadda 2 sano weeye waxaan halkan maanteeda ku weyd inaan xisaabtano cidii ka soo baxday hawsheeda iyo cid aan ka soo bixin aan dib u fiirino wixii dhacay wixii khaldamay aan isla aragno sidaan wax u sixi karno 2 sano soo socotana aan soo diyaarino waa xasuustaa qaarkiina waxaan laga yaabaa in xasuustaan waxaan ku wada hadalnay waxaad ii sheegteen dhibaatooyinka iyo duruufaha jira duruufahaas haddii la xaliyana muddo 2 sano ah dalka in shabaab looga xoreynayo anna waxba ay farteen inaan ka soo baxo anna waxba idin faray meeshaas waxaan ku kala qaadanay ballamo yaan ku kala qaadanay waxaad tiraahdeen ciidankan waa duruufaysan yahay muddo dheer mushahar ma qaadan dhibaatooyin badan yuu qabaa maxaan ku yiraahdaa rasaas la'aan iyo hub la'aan yaa jirta haddii intaas la xalliyo oo duruufaheena waajibaadkeena waa gudanayna halkan marka waxaan idinku yimid maanta inaan iswareysano oo isxog wareysano annaga wixii aad noo dirteen oo ahaa duruufihiinna inaan meel saarno oo ay kow ka ahayd mushaharaadka raashinka oo taxano ah oo aanan ahayn sida taqaaniin wax talantaali ah ama bildhaaf aanan ahayn oo aad noqotaan dee saraakiil sugta ama ciidan suga guud ahaan mushaharaadkooda xuquuqdooda waqtigii loogu talagalay inay qaataan waajibaadkaas yaadna saarteen oo waxaad tidhahdeen annagana waa ka soo baxaynaa inaan cadowga ummadda soomaaliyed ka dulqaadno intaas ma xasuustaa weliba saraakiishii markaas joogtay taliyayaashii markaas joogay waxaan u sheegay waxaan la wadaagay khibraddayda marka 7 sano ka hor markii aan prime minister ka noqday ay shabaabku madaxtooyada hoosteeda iyo baar bulsho ay joogeen in duruufahan aad sheegteen oo kale ay qabeen oo markaasi taliyayaashii aan u yeeray oo iyo weliba amisom ay ii sheegeen intaad ii sheegteen 2 sano ka hor waxay ii sheegeen in ciidanku mushahar lahayn in raashin uusan lahayn haddii intaas loo xalliyo oo duruufahaas iyo dhibkaasi ku jiraan la xalliyo muddo 3 bilood ah inay xamar kaga saarayaan shabaab ilaahay waa noo fududeeyey intaan joogay waxaan xaqiijiyey bil walba iyadoo hore loo arag inay u helaan ciidamada qalabka sida ee geesiyaasha ah xuquuqdooda inay helaan bil walba waqtigooda ay helaan iyo raashinkooda iyagana waajibaadkoodii waa guteen waana ka adkaadeen shabaab magaalada muqdisho ahna waa ka xoreeyeen annagoo taageero ka helayna ciidamada amisom ee markaas joogay oo ahaa ugandeyska iyo burundeyska hadda markii 2 sano ka hor aan ballantaas qaadanaynin waa idinkaga warramay waa idinkaga xog warramay arrintaas waxaan idinku yidhi 2 sano ma idinku yartahay waxa ay igu tiraahdeen dareeska qaado iclaami dagaal 2 sano waddanka ku xoreeynaa haddii aad ka soo baxdo waajibaadkaaga maanta waxaan halkan la taagnahay marka 2 sano marka laga gooyo 2 bilood hadda 3 bilood oo hawlo kale ay bilowdeen si joogto ah bil walba muu helaysan raashinkiina iyo mushaharaadkiina muu helaysan ciidamada qalabka sida khaasatan ciidamada xoogga bil walba muu helayeen idinku aad taliyayaasha u tihiin bil walba joogto muu helayeen hadda ogaada wax hore loo arkay ma ahayn waana waxaa iga filayseen aniga kow oad ogeydeen taageerada aan u qabo ciidanka xoogga iyo guud ahaan ciidanka qalabka sida
oo inkastoo aysan badnayn mushaaharaadka qaadataan ay aad u yar tahay oo ay ahayd budget aan ugu nimid weliba $50 yaa la qaadanay saax u xasuustaan oo bilaaf $100 yaa la siinay horay $100 yaan ka bilownay dhaqaalaheennii wax badan iskama bedelin laakiin waxaan ku guulaysanay ballantii dhankeenna inaan fulino ilaahay waa nagu guulay aan idin weydiiye marka labadii sano idinka shabaab ma ka xoreyseen dalka ma ka xoreyseen marka ma oran karaa marka taliyaashii waagaas joogay ballanta iga qaada ballan idinka ballan fiicnaa ma la oran karaa waagaas xamar ka xoreeyey oo igu yiri 3 bilood aan kaga xoreeynaa xamar ma idinka ballan fiicnaayeen marka ma isweydiiseen marka inaan ballantaas hore u lahayn annaga dhankeenna aan ka soo baxnay wixii aad u baahnaydeen intii karaankeenna ahaa inaan fulinay laakiin idinku weli aydan xitaa igu soo noqon oo aydan odhan waqtigu waa nagu yaryahay qorshihii iyo maxaan ku idhaahdaa iyo balaankii aan bedelno waqtaan u baahannahay weliba waxaad igu darteen rasaas iyo hub ma haysanno taasna waa fuliyey iyada naftigeeda alxamdulilah maanta dhib kama taagna arrintaas arrinta hubka iyo rasaasta dhib kama taagna arrinta raashinka iyo mushaaharaadkana dhib kama taagna arrinta caafimaadkana dhib kama taagna soomaaliyana waxaa haysta cadow aad u fara badan mid dibadeed iyo mid guda labadaba waa haystaan midka dibadda soomaaliya inay istaagto lama rabo sidaan inaad ku jirtaan ayaa la rabaa maxaa yeelay meesha aan ku naalno nimcada aan haysanno noloma ogola waxaa la rabaa in nalagu maamulo intaas adduunka oo dhan wax alla wixii kaa xoog badan yaa raba inay ku maamulaan iyagaana ku dagaalsan siday ku maamuli lahaayeen waxay saameyn ku leeyihiin dad waalaalaheenna ah oo dalka nala leh oo muwaadiniina oo shaqada u qabanaya weliba si xasilooni darro siyaasadeed iyo xasilooni darro dalka ugu jiro si dowladahaas iyo dadkaas shisheeye ay uga helaan wax alla waxay rabaan waxa la rabo oo sida aan nahay hadda ay tahay inaan ku jirno waxa weeye danta laga leeyahay waxa weeye wax walba oo nalaga rabo inaan yes niraahno oo qabkii iyo dadnimadii iyo damiirkii Soomaaliyeed aan meel iska dhigno sharafkii Soomaaliyeed aan meel iska dhigno sababtana waxa weeye dal waxa cudud u ah oo xoog u ah ciidankiisa u ah kuwa gudaha kow waxa ka ah shabaab oo iyaga naftooda gacan saar la leh maxaan ku raahdaa dibad gacan saar la leh iyo dad kale oo runtii u arka hadduu xaalka isbedelo dalka xaalka isbedelo dan inaysan ugu jirin dantooda ay tahay oo keliya dalkan inuu destabilized yahay uusan xasiloonaan macnaheedu waxay tahay waa qof danleeya oo danaysanaya dantiisa ka shaqaysanaya dadka niyadda u dhisi lahaa shacabka Soomaaliyeedna waa idinka oo cadowga gudaha iyo cadowga dibadda ka difaaci lahaa taas weeye waxa dalkan aan uga xoreyn karno qolooyinka khawaarijta ah oo ummadeenna iyo dalkeenna iyo dowladnimadeenna iyo sharafkeenna aan doonaynin oo maalin walbaba isku dayaya waxa ka soo haray waxa weeye argagixisanimo yaa ka soo hartay inay miino iyo bambaano meel soo dhigaan oo la yiraahdo ciidamadii qalabka sida aaway maxaa ku dhacay maxay hawshooda u qabsan waayeen oo shacabka iyo idinka la iska kiin hor keeno saraakiil aqoon dhinac walba iyo khibrad leh yaa alla idinka dhigay haddaan marka ku mashquulno waxyaabo yar yar oo aan fogeyn nin danaysanaya oo wax meel dhiganaya oo ciidankiisa ka warqabin waxa weeye way adkaanaysaa inaan guusha keenno xaqiiqatan waa adkaanaysaa shaqada aad haysaan maaha shaqo caadi ah maaha waa shaqo aad naftiina ku waayi kartaan rag idinka fiican ama rag idinla mida naftooda hore ugu waayeen
dalkan meeshaan uu taagan yahay soo gaarsiiyey laga bilaabo xoreyntii maxaan ku rahdaa dhismahan laga xoreynayay shabaab intii Soomaali iyo Amisom ku geeriyootay iyo xoreynta xamar ilaa laga gaarayo Jowhar ilaa laga gaarayo Baraawe ku geeriyooday guushii waxay ahayd inaan hayno oo aan weliba uga sii dhawaano meelaha iyagu gacanta ku hayaan maxaa yeelay shacabkii baa idin rabaa shaki kuma jiro waa xaqiiqa ciidankan inay geesiyiin yihiin oo la yaqaano oo adduunka oo dhan ay ka tilmaaman yihiin idin malihi waa idin hortaagna laakiin waa astaana leedihiin laakiin dee geesi waxba tari maayo hadduusan sarkaal fiican oo nidaamka iyo discipliinka iyo qarannimada aanan u diyaarsanayn aqoon kasta uu leeyahay waxaa garaadaha u sidataan darajooyinka waxay u sidataan inaad dalka ka xoreysaan khawaarijtan iyo cid kasta oo soo hunguriyeysa dalkeenna maanta cid walbaa hunguriyeynaysa waxayna u hunguriyeynaysaa dad la'aan nama hayso karti la'aan nama hayso qorshe la'aan nama hayso waxaana hayo waxaa weeye in la dhaqaaqo shacab fiican weeye shacabka Soomaaliyeed waa idin taageeraan waa idin garab taagan yihiin haddaba waxaa loo baahan yahay ciidanka aan haysanno inuu sax yahay ciidanka aan haysanno inuu yahay ciidan jira oo dhab ah haddii dowladdii oo anigu aan madaxweyne uga ahay aan diyaar ula ahay inaan siino xuquuqdooda oo markhaati aad iga markhaati furteen hal sano iyo 10 bilood taxana ah aysan bilna waayin waxba naguma aha 2 sano dambe inaan diyaarino xuquuqdooda waxba naguma aha wax isbedel uma dhicin raashinkiina waa helaysaan mushaaraadkiina waa helaysaan niyad diskiina iyo moral diskiina waa helaysaan oo waa idin garab taaganahay shacabka Soomaaliyeed waa idin garab taagan yihiin waa idin heelan yihiin diyaar ayay idin yihiin diskiina iyo moral diskiina waa helaysaan oo waa idin garab taaganahay shacabka Soomaaliyeed waa idin garab taagan yihiin waa idin heelan yihiin diyaar ayay idin yihiin idinku se ma difaaci kartaan caruurteena ma difaaci kartaan difaacina madaxweyne walaalayaal waa ogahay inaad difaaci kartaan anaa idin arkay anaa markhaati ah